celiyeen isagoo waxba wadin dabeetana wuxuu soo diray mid saddexaad laakiin beeralaydii isagana way dhaawaceen oo bannaanka u soo tuureen kadibna ninkii beerta lahaa ayaa isku yidhi sidan maxaan falaa waxaan diri doonaa wiilkayga qaaliga ah hubaal isaga way sharfi doonaan laakiin markii ay arkeen isaga oo soo socda beeralaydii waxay isku yidhaahdeen kani waa wiilka ninka beerta leh aynu dilno si ay hantidiisa teenna u noqoto noo sheeg wax kale haddaba intay beerta dibadda uga saareen ayay dileen isagii maxaa dabeeto uu ku samaynayaa ninkii beerta lahaa beeralaydan isagaa imanaya oo laynaya kuwan beertana siin doona beeralay kale dabeeto qoraalkani muxuu ka dhigan yahay dhagaxii fundiyaashu diideen oo dabeeto la nacay ayaa noqday midka ugu muhiimsan qof waliboo dhagaxaasi ku duldhacaa cadcad ayuu u go'aa oo haddii dhagaxaasi qof ku duldhacana wuu burburin doonaa isaga macallin waannu garanaynaa in waxaad baraysa ay sax yihiin waxaannu garanaynaa in adigu wax dan ka gelin bini'aadamka laakiin waxaad bartaa runta ku saabsan doonista ilaah ee dadka noo sheeg ma sharcigeenna ayay ka soo horjeedaa inaynu canshuur siinno boqorka ka taxadara biyo wuxuu doon inuu qaacimo ii dhiib 1 diinaar oo lacag ah kuma magac ahaan iyo muuqaal ahaan ku qoran kaysar haddaba u geeya kaysar wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wuxuu leeyahay taas maxaad kaga jaabi lahayd haddaba festadii rootiga aan khamiirka lahayn ayaa soo dhoweyd taasoo lagu magacaabo kormarid oo ciise ayaa horay u diray simoon iyo yooxana si ay u diyaariyaan cuntada iidda kormaridda waxaan aad u doonayay inaan idinla cuno cuntadan kormaridda inta aanan silcin waxaan idin sheegayaa inaanan mar kale cuni doonin ilaa macnaheeda u buuxa laga bixiyo boqortooyada ilaah waxaa barakadaysan adiga rabbiga ilaahayaga ah boqorka dunida kan miro ka keena geedka tan qaata oo wada qaybsada waayo mar dambe ka cabi maayo midhaha geedka ilaa boqortooyada ilaah ka timaado waxaa barakadaysan adiga rabbiga ilaahayaga ah boqorka dunida kan kibis inaga siiya dhulka kani waa jirkayga oo idinka laydin siiyey tan u sameeya si aad ii xasuusataan koobkani waa axdiga cusub oo ku jira dhiiggayga kaasoo idinka laydiin daadshay laakiin ogaada kani gacan gelinaya gacantiisa way ugula jirtaa miiskan runtii waa in wiilka aadanuhu dhintaa sida ilaah u go'aamiyey laakiin hog waxaa la ninkiisaga gacan gelinaya ma dhici karto ma dhici karto suurtagal maaha magacuu qaynka saydow kan dhexdiinna ugu weyn ha noqdo sida kan ugu yar oo kan ugu sarreeya ha noqdo sida adeegaha
waayo keebaa weyn makaan cuntada u fadhiista mise kan adeegaha ah dabcan midka fadhiya aniguse dhexdiina waxaan ka ahay kan adeega idinku waad igula jirteen dhammaan jirrabaadahayga oo sidii aabbahay ii siiyey xuquuqda aan wax ku xukumo ayaan idiin siinayaa xuquuqtaas la mid a waxaad wax ka cuni doontaan ood ka cabi doontaan miiska boqortooyada dhexdiisa oo waxaad ku fadhiisan doontaan taajka si aad ugu talisaan 12 qabiil ee Israa'iil haddaba ma jiro khaa'in simonow ogow shaydaanku wuxuu damcay inuu idin wada jirrabo si uu idin kala saaro sida berrigu u kala saaro badarka laakiin waa kuu tukaday si aanu iimaankaagu nusqaamin oo markaad ii soo noqoto waa inaad xoogaysaa walaalaha sayidow anigu waxaan diyaar u ahay inaan xabsi kula galo oo aan kula dhinto waxaan kuu sheegayaa batrosow diiqu ciyi maayo maanta inta aadan 3 goor idafirin in aad taqaano markaan idin dirsaday kabala'aan iyo shandadla'aan miyay jireen waxaad weydeen maya xataa hal shay laakiin ku kastoo haysta kiishad ama boorsad ha qaato oo kii seefa aan haysanina dharkiisa ha iibiyo oo mid ha gato bali dhegaysta way qoran tahay oo isaga waxaa lagu tiriyey sharci laawayaasha oo waxa aniga layga qorana run ayay ahaan doonaan eeg halkan waxaa yaalla 2 seefood sayidow intaa ku filan oo guddiga odayaasha ayaa shiray si ay u eegaan si ay ciise isaga dhex saari lahaayeen kadib shayddaan ayaa dhex galay yudas oo ku magac dheeraa iskariyot kaas oo ka mid ahaa 12 xirta tukada bal si aydan jirrabaad u gelin